السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دبادة channel كيجا أنيقو أفاضمو هذا ماشان كو عصب تاعي هايلو إنا سبسكرايب كسرتي سيدا أولا سعتت وحياله هدا بانسو قلي هدو إلهي رهدو هذا ماشان هوري وجرتن آد وسو دباو أن كل هاي وحاينكو سلام مسلمك قالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أصحابتو حايدين وذا شيكا كله شيكو شيكوين كان عادة وجعشين أنا حتى واجع الله trust me إنا أوجاد وحيالها waxa dunyada waxa adi haday kugu dhicin qaflay ku dhaceen so maanta waxa idin wada sheeko ila soo wadaagtay gawar magaceeda la sheegi karin waan ku salaamay oo channelkayga ku xiran so gabadhii waxay dhahday maanta sheekada waxay ku socotaa gabadhii waxay dhahday harto aniga iyo waxay dhahday wiilan saaxiibo ahayn okay wiilkii aniga saaxiibo ahayn dhahday waan isguursanay okay intaan isguursanin dhahday ka hor wiilku ishukaansanayna baas sheekeysanayna dhahday wiilkii aniga dhahday kala arag sheeka isku keenay bixisay dhahday wax ma naga khaldanayna dhahday alxamdulillah sheekada meel fiican inoo mareys waxa la gaaray dhahday guur wiilkan wuxuu dhahday baay ma tahay ani guuran diyaar u ahay anna waxay dhahday dumar aan ahay guur aniba diyaar waan u ahaan ku dhahday wiilkii guur ma diyaar u tahay ha okay hay maxaan sameysana marka waxay dhahday ani dad dhan meesha ma ii joogay dhahday asaga dadkiisa ayaa buuxaanay dhahday okay ani dadkayga ma joogaan dhahday only asxaab lay ku leeyahay dhahday meesha qofkii ugu soo sakay eedaday waa dhahday oo degan dhahday meel noo jirto almost 4 saacadood jirto wiilkii dhahday waalidiinteeda oo Soomaali joogeen ku xiriiriyay dhahday waalidiintii oo wareystay wuxuu dhahay gabadhiina waan rabaa inaan guursadaan rabaa wax ma laga diido waxa la dhahday okay dib ma lahayd maadaama idinka ku soo heshiiseen isguursada guurka wax qaali ah waaye wax la heli kara ma aha ee dhaheena dhahday bas wiilkii cidiisa joogaanay dhahday wiilku waxaan ku dhahday dhageys aniga aroosaan rabaa inaan sameysto maadaama aroos aan rabo inaan sameystana waxayga aniga asxaabteeda iyo aniga wadaagayno dad waa haysta wax ii sameeyo ee dhahday ninkii wuxuu dhahay abaayo I can't lacagtaan oo arooska qarashkan dhan hooyaday iyo aabahay bixinooyin maadaama hooyaday aabahay iyo familkii qarashkan ay bixinooyin ay kale wax kasta sameynayaan she was like what do you mean ay kale wax kasta sameynaa like aniga cambuurkii gabadheeda qeelinoosa cambuurkeyga dhahday anaa soo dooqsanayo oo alaabtaan rabo ay dhigaysaa oo maxaa la dhahayay fadhiga aan soo dooqda aan raba inaan ii dhigtid ma aha waxay dadkaaga soo dooqaan qof walba dooq uu leeyahay wiilku waxay dhahdaa okay ani hooyaday aan soo hadlaa oo dhahday okay bas mudaan waxaan sugay dhahday like 2 days aan sugay dhahday wiilkii soo waxay dhahday gabadhii wiilku waxa dhaw isla hadleynay waan isla sheekeysanay telefoonka laba bari camal aan sugay dhahday maalin saddexaad waan weydiiyay waxaan ku dhahday haye hooyada akhbaar ma ka heshay wala mala hadashay aabaha iyo hooyada maxaa dhacay how you want waxaan u sameysano waxay dhahday hooyada aabaha waxay dhan hadii anaka oo raacin gabadha oo alaabta la soo dooqeynin oo maxaa dhahay arooska ee anaka sameeyeen lacagteena waa hadii ku qanacsaneen ayda u taalaa ay dhaheen walaale maxaan sameeyna waxaan ku dhahday dhageyso salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ani ma irabtaa ha ma ijeceshay ha hooyada aabaha meeshan ka saar okay ani marka adiga iyo aan ishukaansanayno oo isla sheekeysanayno ani waxa tahay waa ku ogaa inaan qof wax haysanin ahayn waan ku ogaayaan dhahday so waxa dhahday naga dhaaf aroosna marabi waxna marabi alaabteeda anaa baxaay ani ada israaceeno waxaan tageynaa meelaha alaabta laga soo qaato labadeena waan shaqeynaa alaabtan soo qaadanaynaa alaabta marka soo qaadano kadib maxaa la dhahay gurigeena dhiganeena anaka iska dhiibeen adna waa shaqeysa anna waa shaqey hooyada aabaha xoolahooda maba u baahniyaan dhahday wiilku wuxuu dhahday okay hooyadii aabiye dhahday xanaaq cidiis waxay dhahday maalintaas naceebka la ii qaad ilaa hadda waa la necban yahay dhahday waan baxnay dhahday waxaan tagnay dhahday maadaama dadkan xujo ay wadaan ani ma ceeweynayna dhahday inaan oo soof dhex fadhiisto dad dhexdiisa like waxban aan ka ogeyn arooska u socdo ma rabiye dhahday so wiilka waxay dhahday waan isguursanay nikaaxaan sameysanay cidiis waxay dhahday maalintaas naceebka ii qaadeen up to today oo u dhalay dhahday 3 cunug way necban yihiin markaan isku guursan waxa la isku dayay dhexda in laga shaqeeyo waxa la dhahay dhahday naagta ku taliso naagtana ku sixratay aan dhahay dhahday ani waxaan taaganay dhahday sixirka sheegaysi maxay tahay ninka haduu naagtiis jecel yahay Soomaalidan sas waa haduu ninka naagtiis jecel yahay wax u qabto
waxaa dhaha way sixratay meelay u tagtay dhaadhaanay ka dhigtay aa dhahaa is okay ninka naagta uu jeclaan karaa adig hooyaa tahay waa soo korisay waajibka waa kasoo baxday nin rag waaye iska dhaaf wuxuu asagana waxa samaysto siduu rab reerkiisa ha u dhaqdo okay soo gabadha waxay dhahday waa la iisoo sheegay dhahday maalin kasta hadalaa la iisoo sheegay waxaa la dhahday hooyadiisaas isku dhahday walaashiisaas isku dhahday kana isku dhahay waxaan gaaray ninkii waxaan ku dhahday please state-ka waa inaan ka guurnaa mino imaanayna dhahday gurigaan leelga lug ma soo saarayna dhahday ficilka iyo xasidnimada dhahday maba malayn kartid waxaan dhahday wala caanaqday dhahday wala markaan naqdad ma ii joogaan wuxuu dhahday soo bax aan ku wada guriga hooyaday aan ku geeyo guriga hooyada marabiyaan dhahday state-ka naga guuri state-ka eedaday degneedaan isku dayay dhahday inaan ninka ku qalqaalaysan aga guuro meesha wuxuu dhahday kama guuri kari hooyaday aabahay weligii agtoodaan degnaan kama guuri kari hay anaa iska baxaan dhahday waan soo baxay dhahday intaan maqnaay oo walac ahaa dhahday oo guriga eedaday ku maqnaay ninkii dhahday wax la loo sheegaa waxaa la isku dayay dhahday inaan naag kale loo qalqaaliyo naag cidaha aroos qabiil aan ka dambeynaan Soomaali hadaan nahay naag cidaha aroos naagta naag ku fiican ma naagtan way ku sixirta naagta hadalkeeda ma ogi hadal kale ma bijiraba ma soo qaadidba ninka si kasta la igu diray dhahday ninka bas markaan gabadheedii gabaraan dhalay dhahday gabadheedii markaan uurkeeda 8 bilood ahaa dhahday waan iska soo baxay dhahday before 9 bilood aan qanin gurigeega ku soo noqday dhahday waan dhalay dhahday alxamdulillah waan isku dayay dhahday cidii inaan isku dhex daro oo ilmihii u geeyo just because nacab ani ay nacban yihiin dhahday ilmahooda hataa maraba way riixaan way ficlaayaan أنا مرك عندي أنسدة أو ضب لمناي ده هذا أون هاي أون وعزومة ده هذا قولي جيج ولا إيماناي ده هذا قولي سنكالي يتاجا وحنكري وحلا بالشيء نعرف حكم هسي سميها على ده هنيك سو أكتها محيط هاي anyways وحيد هذا I just cannot believe that I like وحيد هذا صدقياش قار كود ده هذا مثل the in-laws قار كود ده هذا it's just وحيد هذا too much why you know قار حاجة ده هذا نلاش أن قورنا جرت ده هذا so قبلنا شيء كذا نلاش قيد نلاش قيد ستة وهو قبلنا كذا إنسان أهين وحمانته لبعضنا هاي ستة قبل بدنا لبعضنا هاي ستة so هذا هوي تهاي أويل كاجا naag uu qabo please fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad iska dhaaftid oonan ka xumaan hadalkayga oo iska dhaaftid wiilka waa soo korisay maasha allah wiil ragac ka soo dhigto hooyo fiican aad tahay reerkiisa asaga ha u tashto sidoo rabo aroos ha u sameeyay hadda adiga kaalmeynaysid kaalmeyn haddaad kaalmeyn karin ilmaha ku kaalmeyn karin mis aad ku kaalmeyn karin wax kala taa ku kaalmeyn karin just faraha ka qaad amaanka iska sii salaam alaykum wa alaykum salaam inta saa idin ku filan آخر زمن على الوجرة وقت اللي خبصت ما بالوجرة بو فهمي ويلكاج واحد شيء ناقو عروسه هديهم ولا السحر هديهم محناك تيس وفي عنيا إس أوكي ناك تدا ناك في عن إتا نكذ وفي نانا وجعلانا يا عنقاج وسوكريس أدلة ما إنه كجعلان ووقت كسيو جعل ولاية feelings ولاية هاي ريرو دقنا المال ولا حبي كنقو هذا حبي كو أهين please هتوسن هاديهم والو السحرة the biggest problem Soomaalida aan qabno waxa way والو سحرة way سحرة nin naag ma bajeclaan karaba wala sixray laakiin naagta markay nin jeclaato way jeceshahay dabaalay ku tahay ninka way jeclaatay dhama qabto miyaa laha laakiin ninka markuu naagtiisa jeclaado waxa la way sixratay sixir wadaadi u tagtay saane u sameysay like maloo quuro qafta inay ka keensatay ninka jecelka maloo quuro soo wala shay qaaliga waa ka xumaa sheekada kugu dhacday I'm so glad inaa hadda ka reysatay waxay dhahday gabadha waan ka guuray dhahday markaan gabadhii dhalay aan ku soo naqday kadib ay dhahday state-ka dhan waa aga guuray dhahday ninkeygan horaan u watay dhahday waxay dhahday alxamdulillah dhahday dib ma qabay dhahday 3 cunug miya 4 cunug miya ma aqaan meelahaas u haayay dhahday ilaahay ninkaas ku kiina dhaqo ilaahay reerka ku dhaqo ilaahay ku dhaafo awlaadaada intii haysan ilaahay siis intay ka xanuunsantahay ilaahay subxaanahu qaadir ha u caafiyo marka waa kaasa gabadhaas sheekadeeda hadii gabadh adi aa ka mid tahay gabdhaha sheekooyinkan oo kale waan ka xumahay isku day inaad ka fogaatid sodo xun hadaa aragtid ka fogaa sodooyinka dhan ma xumo qaara xun qaara fiican marka hadii sodohda ay fiican tahay maasha allah qaw gabar wanaagsan u noqo garabka istaag hadii sodohda ay xun tahay maadaama ayda ibiirkeeda iska horkeeni lahayd ani waxaan kugula talin lahaa meel ka fog oo ka fog almost 20 saac u jirto ku imaan karin iska dag haduu ilaahay yiraahdo sida aadna u badbaadid ay aydan kaaga badbaado oo adiga wiilkina isku dhicin insha Allah
khayr iyo caafimaad idin rajaya asxaabteedii aad iyo aad u mahadsantiin I love marka storyashan oo kale idin la soo share garay waan jeclahay anina marka ila soo share garaysin iyo soo sheegatiin aad u jeclahay so hadaartid sheekadaada inaan la wadaago anoo magacaaga sheegaynin inaan ka sheekada ka sheekeeyo oo qof kale dhibaatadaada oo kala haysato uu ka faa'iideysto insha Allah ila soo socodsi ila soo xiriir Snapchat-ka dhinaciisa ila soo xiriir haduu Ilaahay yiraahdo so khayr iyo caafimaad idin rajaya asxaabta bye